wararka ka imaanaya degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ciidamada Itoobiya iyo kuwa militariga Soomaaliya ay maanta isaga baxeen degmada Ceelbuur oo muddo sanadaha ay gacanta ku hayeen. Gudoomiyaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud Nuur Xasan Guutaale ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliya ay isaga baxeen, waxaana uu tilmaamay in ciidankaasi ay u ruuqaansadeen dhinaca degmada Dhuusamareeb ee isla gobolka Galgaduud. Ciidamada Itoobiya iyo kuwa militariga Soomaaliya ayaa muddo 4 sano ah waxay maamulayeen degmada Ceelbuur, halkaasi oo dadkii deganaa dhammaan isaga baxeen kadib markii ay go'doomiyeen ururka Al-Shabaab. waxaana kaliya degmadaasi ku noolaa ciidamada Itoobiya kuwa militariga Soomaaliya iyo tirayar oo shacab ah. wararkii ugu dambeeyay ee ka helino degmada Ceelbuur ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan Al-Shabaab ay gudaha u galeen degmada Ceelbuur, waxaana ay dagaalyahanada Al-Shabaab la wareegeen saldhigyadii ciidamada Itoobiya ay baneeyeen. ciidanka Itoobiya ayaa sidan oo kale hore uga baxay degmada Ceelbuur sanadkii hore kadib markii dhowr sano ka hor ay ka saareen Al-Shabaab. hase ahaatee ciidamada Itoobiya ayaa mar kale dib ugu laabtay degmadaasi. shalay ay ahayd markii ay ka baxeen deegaanka Goofgaduud ee gobolka Baay isla ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya oo fadhiisin halkaas ku lahaa, waana fadhiisinkii labaad oo muddo 24 saac gudahood ay ka baxaan ciidamada Itoobiya. Axmed Saciid Axmed, Telefishinka Cable, magaalada Muqdisho.